halkan waa deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa ku soo barakacay deegaanka ceel jaalle dadyow aad u fara badan kuwaas oo ka soo cararay ama ka soo baxay magaalada Beledweyne kadib markii webiga Shabeelle oo fatahaad ka geystay gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan meesha berga ku 12 maalmood ayaa la iska daba wareegay mug wax la dejinayo mug biyo la goobaha lahayd shan shay meeshay masiiba ka dhacda shay ugu dhibanaa jirtana biyaha ka hayna afarta kala dhisi tilmaama marka waxna waa la rabaa wax la hugtana waa la rabaa mas'uulna waa la rabaa afmadna waa la rabaa shaqtaashay horta meeshii masiiba ku dhacda la soo hormari jiray waxa ka hayna biyihii yaa ka jira annagoo idin mahad celinayna meesha Hirshabeelle jooga oo maqlaa dawladda dhexe maqli hay'adaha maqlaa horseedkoodii yaa tihiin waxaan idinka codsanaynaa meel soo taala loo yaal dadku soo yaal waad aragteen waxba inuu haysan waad aragteen hooyinuna haysan oo hugsi haysan oo had haysan waydii muuqata waxaan idinka codsanaynaa masiibadana kala dhacdo mugay dhacdo in la intay qosay jirta in laga gaarsiidin waxaan joogaa meel lagu soo barakacay oo magaceeda la yiraahdo ceel jaalle waxaan hadal ku wataa kuwa wax maamula ama loo yaqaan inay wax soo adiga garab galaan oo ay dad garab siiyaan dadweynaha ku nool magaalada Beledweyne gaar ahaan xaafadda ceel jaalle ee loo soo barakacay dadkii raba inay dad adiga u gargaaraan baahiyo waxa ka jira aan la xisaabi karin oo aan marna lagu xisaabi karin inay dadkaas adiga dhibaatada haysa laga qaado ma idinka filayna inaad nala soo gaartiin waxa inta maado aan u baahanahay oo aanan tiri karin guri alaabta laga soo qaatay dhismihiisii meel banaan la dagay inta maado u baahan yahay midna la soo koobi karin iyadoo ay ugu badan dadka markii ugu horeysa ay dantooda cusleed gooba iyo qotalyoonka kuwii noocaas ah ee soo qahay ceel jaalle soo dagay oo aan bees ku lahayn oo ayna u furneen masquul ayna u dhisneen meel aan guri loo goobay dhir ay ka bilaabeen dhibaatada saaran hadii aad rabtiin dad adiga magac nagu goobay hadii aad aheedeen annaga noo iimaanina hadii dadka tabaalaysan ee dhibaataysan dad ina garab qabta raba hadii aad aheedeen waan idin baahanahay noo imaada ama wax maamula oo madaxweyne iyo ciidan iyo wasiir iyo waxaad aanaysan ahaada ama dad adiga bini aadan oo ummad wax kaalmeeya ahaada dhibaato waxaan haysaa hadii aanay kuwa aad u danaysan aanan awoodin in ay nolol maalmeedkooda ay gacantooda ka sarrafaan dhibaato culus ayaa na saaran waa in nala soo gaarteen inta adiga Ilaahay oo noogu tala galay ee aan idinka helno waxaan idinka rabaa marka in adduunweynaha noo gaarsiisaan inta muslimiina intii deeq wada intii hadii allaba ku roon yahay wax u heli karta dadkan inaad u soo gurmataan oo caalamku gacan soo siiyo oo dawladda Hirshabeelle iyo dawladda dhaxaba warkaas naga gaarsiisiin iyo hay'adaha iyo warfadeenada oo waad u jeedaan adigu waad aragtaan waxa meeshan yaale aad intaas gurmada noo samaysaan annagu haddaan nahay odayaashii xaafadda deegaanka waxaan u awoodnay waa u qabanay dhulkaanay hadda degan waa u raadinay ammaankooda waa u taaganahay amnigooda inaan u saxno wixii hadda u yimaada inaan laga xoogin ambaan la daba marsiin waa ugu taaganahay waxaan jecelahay marka inaad aduguna aad naga gaarsiisaan meeshaan in dhib ka jiro waad aragteen hadda meeshaan gadaashayda waadiga dhexdiisa saxaradii iska taala mas'uul male wax la cuno male dadku magaalada ka qaraabo jiray qof miis yar haysata qof dabakaaya yar gadata magaalo waa laga yimid dadka intuu yimid soo xoolo male Isxaaq Rashiid Maxamuud Galmudug TV deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada